madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maantay booqasho iyo dhiirigelin ugu tagay ciidanka gurmad qaran ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland iyo sidoo kale ciidanka kumaandooska danab kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay howlgallo guul weyn laga gaaray ka fuliyay qaybo badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. howlgalladaasi ayaa lagu naafeeyay kooxaha khawaarijta iyadoona lagu burburiyay saldhigyo iyo qorshayaal khatar ku ah nabadda iyo amniga shacabka Jubbaland. madaxweynaha ayaa si gaar ah u bogaadiyay geesinimada dadaalka nafurnimada leh iyo mas'uuliyadda culus ay ciidanka u hayaan difaaca dalkooda. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in guulaha laga gaaray howlgalka ay farxad iyo hididiile u tahay shacabka Jubbaland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana ay muhiim tahay in la sii dardargeliyo howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee cadowga ku ah dalka iyo diinta. bismillahir rahmaanir rahiim wa bayna nasta'in ala umuri dunya wa diin wa salaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. waxaan rabaa marka hore inaan idin salaamo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. salaan kadib waxaan rabaa inaan idinku hambaliyeeyo gurmad qaran iyo hawsha ay qabato iyo shaqada aad ku jirteen iyo sida geesinimada leh ee mar walba howlgallada iyo aad ugu guulaystaan idinkoo aad wada socotaan ciidamada kale ama heer state ama heer federaal ha noqdeen danab SNA JSF iyo idinka iyo jizaba taa waan idinka mahad celinayaa. xaqiiq ahaan dhallinyaradan yaryar ee maanta mas-uuliyadda ay qaadeen ay ka weyn tahay mid dad waaweyn maanta ayna garanaynin iyo shaqada ay hayaan waa mid kulligan sharafna oo lagu faani karayo. taasaa muhiim noo ah idinkana aan idinka hambaliyeeyo idinku dhiirigeliyo. waxa ugu muhiimsanna waxay tahay wada shaqaynta iyo isku xidhnaanshaha ciidamada iyo saraakiishu shaqada ay waajibaadkeeda idin siinaysa iyo sida loo fuliyo sababtoo iyaguba dee waxay ka soo qaadanayaan jaranjaray ugu soo degaysaa. waxaa labaadaan rabaa inaan idinku booriyo wakhtiga aad fasaxa haysataan eedaan operation ku jirin dhididka kaa dhacaay ee tababarkaaga dhacaay wuxuu faa'iido kuu qabanayaa maalinta xaaladda dagaal aad ku jirto. sidaa daraaddeed markaad xerada joogtaan waxaad qabataan inay noqoto inaydaan fadhiisanin aad debrid iyo tababaro iyo socod iyo aad samaysaan moor training mar kastoo tababarkaaga uu bato waxaa badnaanaysa guushaada aad ka gaadho xilliga dagaalka. taasaa iigu muhiimsan. marka idinka iyo saraakiishiina iyo waxaan idin farayaa in arrintan aad ku dadaashaan. shaqada aad qabataanna waa mid maanta qof waliba uu ogyahay ama la wada ogyahay iyo wada shaqaynta idinka iyo ciidamada kale iyo sida loo wada shaqeeyo. waxaan Jubbaland ku faanaynaa oo waxtar weyn noo ah maanta. waxaan ku faanaynaa inay tahay ciidanka shaqeeya ee howlgalay labada heer wuxuu doonaba ha noqdee inuu yahay hal unit, hal ciidan, hal shaqo, hal awaamir iyo hal operation oo wada socda oo maanta ayna jirin ama siyaasad dhexgeli karta ama khalkhal kale oo ku iman kara midna ayna u jirin. taas waan idinka bogaadinayaa. waana mid aan ku faanayno heer state iyo heer kaleba maanta shaqada aan qabanayno macnaha ay noo samaynayso. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin shaqadaad haysaan. waana mid la wada ogyahay. ku samra xero jooggiinu ha noqdo tababar iyo debrid iyo socod intaada shaqada aydan ku jirin si berri natiijo badan aad uga dhalisaan. aad iyo aad baad u mahadsan.